السلام عليكم أصحابتي قالida meelowba caalamkaad ka joogtaan isku soo noqod wanaagsan maanta waxaan jeclaystay muuqaalkan inaan kugu sheego afar qodob oo mar walba gadaal ku dhiga waa afar mar walba hadayna nolosheena ka eegno dhan kasta aynu ku sugannahay laga yaabaa qaar kamid ah inaad ku sugan tahay laga yaabaa gidigood inaad ku sugan tahay waa afar aan filayo in mid kasta oo kamid ah in noloshaada maanta aad ka dareemi karto mid wuxuun in noloshaada ay ku jirto magacayga waa Cabdiraxmaan Xasan halka iga daawanaysan waa Cabdiraxmaan Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta caadada koowaad waa caadada la yiraahdo dib u dhigista caadada koowaad dib u dhigista tan waa caadada ugu weyn ee ka hortaagan wax qabad inaad bilowdo yacni inaad wax samayso wax kasta dib baad u dhigtaa shay kasta oo noloshaada saameyn ku leh wax kasta oo noloshaada bedelaya wax kasta oo noloshaada ku soo kordhinaya wax faa'iido leh mar kasta dib baad u dhigtaa dib dhigista waxay keentaa meel daran noloshaada inaad ka dhacdo meel noloshaada aan ka soo noqon lahayn inaad istaagto wax kasta oo tiraado waan qabanayaa qabo dib u dhigistu waxay ka hor istaagaysaa waxyaabo badan oo noloshaada ka mid ah inaad ku dhiirato qodobka labaad isticmaalka xad dhaafka baraha bulshada tan waa caadada ugu weyn ee ku dhibanahay qof dumar iyo nin ragba maanta uu ku dhiban yahay caadani waa caado aan caadeysanay in mar kasta aan social media aan dhex taaganahay in saacadaheena ugu badan ee laga qaataan baraha bulshada wax macna oo nolosheena ku soo kordhiya ma jiro maanta haddaan ku weydiiyey intii muuqaal ugu dambeysay aad soo daabatay Facebook Instagram TikTok muuqaal kamid ah wuxuu ka hadlayay shay kasta haddaan ku dhaho inaad sheegi karin waana caado inta badan caadeysanay dadka qaar ba xataa marka aroortii subax salaada subax soo kacaan iyagoona caayadan iyagoona weysiisan ay markii baraha bulshada bilaabaan inay daawadaan subhanallah waxyaabaha ay kala kulmiyeen aad iyo aad u qaabtaran waxyaabo mararka qaar adoo salaadii subax aad tukanin aadan caadeeyeen xataa ku bilowda baraha bulshada waxa dhacaya qof la dilay qof dhiig wax ul aroortaada markaas waagaas aroorta waa ku qasnaanaysa aroortaasi qas iyo qalalaaso ka dhamaanaysid inta badan waxa disha hal abuurka qofka xaaladaha qaar xataa qofku waxay ku dhiirisaa in subax markuu soo tooso uu arko qof noloshiisa routiinkiisa isbedelaya cunno nafaqo leh cunaya waxay keentay xaaladaha qaar qofka xataa uu isbarbar dhigo dhaho qofkaasi tolo maxaa uu noqon weeyday qofkaasi saa maxaa uu noqon weeyday xaaladaha qaar xataa nimcada Ilaahay ku siiyay xataa adeegsatay xataa inaad ku qancin ayay keentaa isticmaalka baraha bulshada haddaad maanta saaxiib la tahay qof noloshiisu ay batahayba in dumar la ceyrsado in mar kasta laga sheekeeyo dumar wax aan faa'iido lahayn si fudud ayaad uga mid noqonaysaa soo marka qodobkan waa qodob ayna aad iyo aad ugu badannahay mar kasta ay saaxiibadaadu xun yihiin waxa badanaya meesha ugu hooseysa ee nolosha inay istaagto mararka qaar xataa xaaladaha qaar qofku waxay ka hor istaagtaa inuu ka fikiro mustaqbalka xaaladaha qaar qofku wuxuu xataa isdiransiyaa ama uu ku qancaa in noloshiisa uu ku qanco meesha ugu hooseysa uu xataa ku qancay qofka mararka qaar gelisa waxaana keenaya waa saaxiibada xun ee qofka mar walba uu la saaxiib yahay qodobka afraad ee muuqaalka jeclaystay inaan kugu soo gabagabeeyo waxa la yiraahdo isdhigasho tan waa mid aynu filayna dhamaanta in nolosheena ay ku jirto yacni waxa ma qaban karo waxa ma baran karo way igu adag tahay ani leeguma talagelin dadkaas loogu talagalay ani way igu adag tahay ani ma sameyn karo waxaas oo marmarsiyo ah ay noloshu ku tusaysaa waxaas oo marmarsiyo ay nafta ku tusaysaa boqol marmarsiyo oo aad shayga ku qaban karin bay ku soo hordhigaysaa hal sabab oo u sameyn karta xataa kuma soo hordhigayso markasta oo isdhigasho waxa ma qaban karo waxa ma baran karo iswidii sabab u sameyn karin sabab aad shayga u baran karin sabab heerka aad u gaari karin iswidii maanta noloshaada